والله يابي والله يابي نحنت وعدالة درada way waxaan xilliga naxanta ugu hogani iyadoo kulayla waa cadaalad daro ma aha dhaxan aan soo dhawaada hadal kala deesan weeyay oo bad waxaan ku rixiyaale ku nool way dadka noqdeen moogta adeer faan wax ma sheego يا هرا لوي فرد الله يسوها يا محل يسكو فاني مركا هذا الشغل وهذا حقيقة صنعة وحقيقة ما رأيك تشتاني دي الشيء يا تربان هايو هجير هبادة بيه ما حد دير كتاي واحد دير كتاي شيء دور تربان هايو ورد وفريستها تندير نمت يديني تضرب قولوا كتاب على مريح اللي بعنا نينا كتاب اللي بنمرجله كتاب كلا مريانا وحوي وحكو قمنيا بين وأنا واحد يشكتان تضباطني اللي حلوان هلكا كوتشلا waxay u hayaan dirta sheegaysan Soomaaliya adeer soo dhawaada oo soo dhaweynay cali Soomaaliya xildhibaanada maaragtay ku jooga تضباطن iyo 5 xildhibaan weey ragga ficeena ee hadda arkaysan bal maxay qabtaan ii sheeg 7 iyo 5 xildhibaan oo maqaar saar ah oo waxba qabanin heedade yaa meesha jooga nin walba kitaab baa la mariyay waxay leeyihiin gudoomiyihii labaad ee golaha shacabka bal waxa ay qabtaan dirtan aad sheegaysaan miyaan isfaanin ama been baan isku sheegnaa بين ما نسكو شجناه بين ما نسكو حاساونا خيالي ما نسكو جوابنا وروح أي ديرتو تاعي أي صوماليا كتاعي متشرتو أنا بين دين شيء ما يدين من نفتينا بينو شيء ما خيالي ما نسكو حاساويا خيالي هذا رسمه حاساوية دي حقيقة هذا حقيقة ولا نسكو حاساونيا ديرتن شيء تضباط يا شن اللي بان بيلين نينكا وقوي اللي قصوا دورتها عندو هرجيسة تجمعان تبرعانا قلبس كومتي كرو هرجيسة قلبس كومتي كرو ما قرأت برعانا كومتي كرو لكن ninka laga soo doorto ee xubin direed ku jooga mid kastaan xubin direed ku jooga haduu surre yahay iyo haduu biimaal yahay iyo haduu cid kasta yahay iyo haduu gurgure yahay iyo haduu jiida yahayba intuba waxay ku joogan boonti direed bay ku joogan bal ninka been aan la dhihi kara ha sheego hay iyadoo saasi ah maanta waxa weey maalin dhow dalku qalalaas u galay waa la isqabtay waxaan dhahaynay war dirtu waa nima sharaf jecel أمين جسوا هذا هو مارت هو هالله وحول أنيقا وحالي أمين جسوا محاضر وهذا شاك اسمايو وحنوقع لا بوري دت كي قاعد دقن قال شعل بعيد دقن ورنتي ما نكلا عبد الرحمن ودواب حل قبيل بعد كفر إذا قبيل سيد قبيل تاجر كرتا وأنا بقبيل كفر ده يا أنا كفر ده بور 4.5 ورنتي كمدي دنيدي مركا دت كان دربان هاي هو يلا بقى أبصيري بقرطوية دي إثيوبيا رجع تبي درب هاي صوم جوميستياش إيطاليان رجع تبيني دير بهاي لكن ما أنت دير تشوفته ودير فيسبوك كتاليسا وهو يقول هو سيكون شارو خيال كنور حاجة ديرت وحكتها إيش هيك بلدير حاجة وحكتها إيش تو أنت صدق بعدوي بيلين أو حرالي لين أو توفيق بيلين أو شبه الهوسي دجانو لين أو وحنكوري بكل بيت دجان أو ميل أنا دجان ما تشرو حتى أنا ميل أي وحكيهين ما تشرتو labada kun iyo 20 ka la maraya haye ilmaha saqiirka ayaa waxaan ku wax walba social media og qolo walba dhibic waxay ku leedahay ninka isaaqay laga soo doorto burcade ma tagi karo hargeysana ma tagi karo boorama ma tagi karo nooc doona ma haado laakiin wuxuu joogi karaa halkan buu joogaa 4.5 wax lagu qaybsadaa 4.5 waa dhibic direedun 4 dhibic shiman ku qaybsanaa Soomaa ninka hawiye isagu wuxuu isku kalsoon dhulkiisii uu haystaa deegaan buu haystaa مرة إير بات شيء سأله بإير شيء ما مرة مين أجيبه إير محيطها ينتا واحد كشكين سما بتشربه ما قرأت هذا روحان لا يا خي حلي بعنا ذا المقار صار كعد إفسيوني ما أنت اللوجمي يري شلنا اللوجمي يري هاي ما هاي مركها وحكيهين تربان هاي ها حكي وحكتها دري ماشى وحكتها هاي إيشك طبعا سنة صدق سنة خيالي اسكو جوابين إنه بين اسكو هساونين
fadda waka wala shiray efisiyoni waa lagu heshiiyey maxaa lagu heshiiyey maxaad adu ka ogtahay maxaad kala socotaa war been iyo khayaal ku nool baatiin wax allaala waxaad wax ka tihiin ma jiro haddii la heshiiyena idinku waxaad tihiin kuwa hambada maaragtay baarixiga ah haddii maaragtay la isku raacana waxaad tihiin kuwa hambada cuna efisiyoni baan idinka yeedhin meel kale aan idinka yeedhin meel baydaan waxba ka ogeyn xageed wax ka tihiin marka ragba adeertan ragba yaa ku tashaday meel nin eeg xildhibaanada hadda dir markii la waxa u badan waa isaaq maanta hadduu wasiir yahay hadduu xildhibaan yahay dee ma tigi karo maaragtay intuu gobolada waqooyi tago ma odhanayo waa la soo dhawo miyaa la odhanayaa maya waa in heshiiska la helo boonta uu ku fadhiyana waa 4.5 na 4.5 baan ku qaybsanaa 4.5 na boonta direed buu ku soo gelayaa sidoo kale weey marka dadka la leeyahay waxba tira iyo waxba kana xildhibaanadoodu waa maqaarsaar kitaabka waa la mariyay hadda anigu hadii maanta la yiraahdo hebel codee codka aan ugu ridayo qofku haduu yahay qof mas'uul oo ummadan qaabili kara waa la weydiinaya maalinta yawmal qiyaamaha laakiin waxa weeye ummaddu waxay ummad ku tahay oo wax ku tahay xildhibaan war anigu ninkii yiri qabiil baan ummadeedu ku matala wallahi baan la yaabin qabiil waa 4.5 baa qabiila bal adigu meel ka saar nin meel oga baxaya ma jiro efisiyoni waa lagu shiray haddana heshiiska soo gabagaboobaya dir waxba kama aha in xaashigi meelaha beela mutolood la yiraahdo meelaha ku shiro oo maaragtay danahooda ka hadla ayuu iskala socdaa mutoloodantooda ka hadlayaan maxaad ka daba socotaa waa hanbadii la cunayay wata war nin dantiisa ka sheeka maaragtay ka tashanaya oo mustaqbalkiisa iyo masiirkiisa meel saaray maxaa ku daba dhigay waxa ku daba dhigay dee ninkan uu tashaday adiguna tasho marka waxa weeye ummad dul saaran oo gabigeedba aw saaran ninku waxa la hadaad reer geediya aragto reer geediya hadaad aragto soconaya Soomaalida sida hadalka qalooca u fasilata mud hadaad reer geediya aragto lama dhaho war xageed u geeditiin xageed degaysaan baa la dhaha miyaad soo guurteen miyaad maaragtay xagee socotaa dirtu waa nooca ha tusaale intaas oo farmaajo farmaajo wakaasi hadduu wax idin qabteen wataasi rag baa taladii loo dhibay maxay idinkaga dareen efisiyoni baan idin geynin shir baan waxba laydinka yeedhin waxba idaan ogeyn markuu shirku soo dhamaadaa sawir la soo galaysaa niman shiray oo dantooda ka hadlay adeer anigoo afayeenka direeda waxaan leeyahay sidan si maahaba cadaaladna ma jirto nidaamna meesha ma yaallo cadaalad hadday tahalada wala kala bixi lahaaba marka anu cid kala ma dhaliilayo nin kala anigu hadduu hawiyo tashado dantiisu ka tashaday hadduu daaro tashadana dantiisu ka tashaday aniga waxaan dhaliilayaa xildhibaanada sheeganaya dir baan nahay xildhibaanada dhahaya dir baan nahay oo dir baa matala oo nin walba kitaab baa la mariyay kitaab baa lagu dhaariyay bal kitaab lagu mariyay kitaabku ku qabayay maxaad qabatay nin wax qabtay male nin qadiyad ka hadlaya male nin masayr ku xisaabtamaya male in Axmed Madoobe waxay u yihiin maxaabiis in galmudug bay maxaabiis yihiin inta federaalkuna meelahaas ay maxaabiis ka yihiin xogaaga yar baa mushaharka u soo dhaca kii shaqaysan kara wax yar samaysan karana waxaan ku ma ku soo dhacday haye war waxaasi qadiyad anigu ma aqaan annagu dad diraan nahay British baan nahay Afrikada dadkii loogu yimi ee waxaan ku qadiyadooda wax laga weydiin jiray baan nahay manihin dadkii dad daba fariisan jiray xildhibaanadan hadda nima matalaan basaasan 75 xildhibaan miiska saaran waxba naguma matalaan hal xildhibaan oo arab la yiraahdo ninkaas loogu qaatay wax qadiyad ka hadlaya oo masayr direed iyo masayr kalaba ka hadlaya ma jiraan marka warooda waa arkiisa maalin wari wuxuu ku soo celceliyay ma qabiil baan meesha fadhidaa waan fadhiyaa bur yes laabtu garaac qabiil baan fadhiyaa bur waa runtii very good waa runtii qabiil buu ku fadhiyaa yaa diiday riig buu dhisay intaasoo wiil buu ceelal geystay dabadu dirsaday intaasoo ceel buu dhistay maxaad qabatay dirbaanahay hooyadaa ku wastirta maxaad dir ku haysaa maxaad igu matashaa xasaanadaad igu matasho waa baadil cad wey baadil cad baa mashaharka ku qaadataa baadil cad baa lacagta ku gurataan waxa aad dir ku matashaan iyo waxa aad dadku matashaan midna ma jiro ummadda waxaan leeyahay dirta ku abdirsatay ee dirka ah ee koonfurta Soomaaliya maamkeedu uu soo galo adeer sidan si maaha koonfur galbeed madaxweyne ku xigeenka xaq u leeyihiin
galmudug baad waxaan weey wax xaquuq u leeyahay war federaalka markii la yimaado efisyooni maxaa la idinku yeeri waa taarkiisina xalay mahdi guuleed warqadu soo saaray mahdi guuleed baa raggii wax ka dhaqdhaqaaqay ku jiray farquri fool ma dhaqday Soomaalidu tiraahda mahdi guuleed muxuu ka qabantay anigu keligay maxaan tulka qaban karaa war iska daadir kalaaf shufadan ka dhashay haddaan keligay maaragtay keligay wax qabanay waxa ma qaban karo waa inay Soomaalidu waxa jira xiniintu taada ma aha waad ku garab joogta dirbaanahay ruuxaniyo weyn dabaajin doona ummad ma joogto meeshan dirna maaha waa daanyeer weey daanyeer baa meesha isku timi nasabada ma galaan xildhibaanada halka jira nasabadu waa shay qaaliya war ninka Ingiriis la dagaalamay ee Talyaani la dagaalamay ee boqornimada ee waxaan ku Abasiiniya la dagaalamay ee maanta waxaan ku daba fadhiya nin kale muxuu masayrkaas muxuu ugu matalaa dirbaanahay dhalinyarada ugu sharafta badan bay ka soo jeedaan beelaha direed wali ma qof dir oo laga cabanayo la leeyahay waa kaasa isku dira iyo kaasa balaaye iyo fidme ka shaqeeya waxay wax ku eedeena waa waxa wardantiina iyo masayrkiina geedna ha ugu gabanina difaac ha u gelina runtaan idin kala hadlaya xaqiiqday tagaysaa baashani ninkii dhaha waxbaan cadaalad ku raadinaya cadaaladu xagay taala efisyooni ma tagtay markii lagu soo dareeray bariiski baariixaga hambada baa dadka qayb gashaan cuno sawir baa soo gashay security kama ahayn waxba kalamaad soconin waxba kamaad ogeyn in xaashina beelo matuluud leeyahay matuluud miya magacaaba igu adag beelahaas iyo daba fadhiya beelahaas way tashadeen sharaftoodii ayahoodii masayrkeeda ka tashanayaan kuwa nagu matala beel ama jufo ku matalana weligood deegaankooda intay tageen waxaan ku wax ma qabanin baawarkii labaad ee baarlamaanka leenahay ninni wax ku matala ma laha beel waxaan ku beel aan 9 xildhibaan lahayn ama 8 xildhibaan ma jirto maxay markaa ku matalayaan maxay ku matalayaan shaargaray barnaamijka waxa annaga nagu matala hadaan dirnahay adeer qadiyadaydu geedka go'an weey Abasiiniya la dagaalanay Ingiriis baan la dagaalanay Talyaani baan la dagaalanay manihin dadkii maanta waxaan nahay dadka Soomaalida ugu sharafta badan ee cunsuriyada lagu eedeeyay laakiin ummadan ma aragtay iska daba fadhida ummadda ee 75 xildhibaana maxay qabtaan horta ninka xildhibaanka in xaasha Hargeysa ma tagi karo qalin caswi waa inuu haduu tagana sidii in arti qaalib uu wiilkiisa uu warqad dirsadaayo 10 cod si dirsadaa oo ilaa TikTok la soo galiya marka soo inaad masayrkaaga halka ku qabto oo runta sheegta ma adeer lafta garan uu fikray madaxweyne ku xigeen ma ogola haye halkaas bimaleen sax waaye xageed saxda haysan maxaad la joogtaan sax dhaho maxaad la joogtaan waxba lama joogtaan adeer runta ay sheegayay waa inaad xuquuqdiina madaxweyne ku xigeen waa inaan ka sokaynin wixii ka sokeeyana quursi baan u arkaanu sababtoo maxaad meesha ku sheeganaysaa niman boonti kasta oo aad xuquuq ku leedihiin xuquuq baan meesha banaanka ka qaataad radkiin wax kale anigu aan idhaahdo ma garanayo 75 xildhibaan oo masayr umadeed matalaya maxay ka yihiin meesha maxay ka yihiin mid wax qabanaya mala mid sharaf qabanaya mala waa sax waaye nacladiin dhashay wasa ma waxa waxna sharaf lagu qaata waan fiirinaya asbuucan oo dhan ishaan kala socday bal u kaadi bal eeg bal waxay dadkani sameeyaan bal waxa soo dhasha bal wax Jubbaland baa wax la idinka siiyay sax waaye meel baa sax war wax aad u qalanta qaado ha qaadanin maaragtay wax qaboobay oo baqtiyay oo daciifa nin walba dantiisu qaadanaya sharaftiisu ku xisaabtamaya qadiyadiisu ku xisaabtamaya laakiin hadaa adigu noqoto maaragtay wax hanbacuna wallahi aday ku daran tahay adiga daba fariista fucking hell aday ku taala ma garatay tiilka cusub waxaan leeyahay adeer dantiina ka fikira maxaad u halgantay maxaad u dagaalantay maxaad masayr ku leedahay sax waaye nacal fadaadiisig boontigaas waaba bahdilaad weey ma garatay war adeer iyo xuushnimada iska daaya ina gumeednimada iska daaya nin walba dantiisu ka xisaabtama nin walba sharaftiisu ku xisaabtama nin walba dadkiisu ku xisaabtama haye laakiin hadaa tirahdaan waxaan nahay ummad masayr leh ummad maxay leh ummad kan leh oo maxaad ummad ku tahay adeer Soomaaliya 4.5 baan ku qaadanaa 4.5 baan wax ku qaadanaa 4.5 nin waliba xuquuqdiisu soo xaadir tagay nin waliba xuquuqdiisu soo shaqo tagay adigu maxaad ka tahay meesha 76 xildhibaan oo xasaanad haysta oo meel ay ka jeedaan iyo meel ay ka socdaan midna aan garanaynin
mid waliba sax waaye sax kuwa kismaayo laga soo doorto xataa kismaayo ma tagi karaan kuwa meel kale laga soo doorto meel kale ma tagi karaan waa dad daba fadhiyaba ummad maqaar saar oo aba meesha joogta sidan sharaf maaha adeer maxaa xildhibaan ku tahay bal waayahay hadda waa la soo shiray daarood xuquuqdiisa uu dhacsaday hawiyana uu dhacsaday diray xaqi waxa yaala adiga diray meesh waxa yaala ishag wallahi billahi tallahi baan ku weligay baarkin talo kale ummad noocan u dhaqanta ma arkin ummad sidan oo kala ma arkin ummad sidan sharaf ku raadinaysa ummad maaha sheergaray barnaamijka niyo 7 shuuba idin dhashay anu caaw xishood igma jiriniyo wax aad fi ay wax shahaadooyinka dhamel masterka aad ku haystaan gidaarada bila amalka ugu tihiin ma garanayeen adeer wax ma idin sheega ama dadka ku kala biiro oo sheegad noqdo umada raaca ama sharaftii Ingiriis iyo Talyaani iyo Abbasiin iyo Ahmed Gure soo celiya oo magaciinu banaanka hayaan oo wixiina wax daraya banaanka ku qaata oo si sharaf loo qaata ama waxaad noqotaan dad ma aragtay say maanta yihiin ka ahaala dhalinyaro ragga aqoon-yahanka ragga Britishka ragga wax bartay nin maanta wax ku qaba ma jiro maxaa wax ku qabtaan marka meesha sax waaye sax maxaad saxda u haysaa saacad u sacba tumaysaa yaa maxaad sacabka u tumaysaa bal ii sheeg wax allaala wax aad maanta ka tahay dawlad calanka buluuga leh kaliya dadka ugu taageerada badan baa tiin social media dadka nabadda difaacatiin dadka waxa tiin xuquuqda difaacatiin laakiin maanta haduu wariye yahay haduu nooc kasta yahay haduu jaamic yahay haduu daba joogo mid walba wuxuu boost gareynaya nabadda in laga taliyo masaalixada haduu xildhibaan yahayna wuxuu taagan yahay xildhibaan hebel baa la tartamay 30 sano anaga kii nagu mataliya kursiga wuxuu dhaafilay African Airways ma soo degtay sidoo uu taagnaa waxa qalbiga ku cadaaday ee cirooday Allah ha u naxariistay marxuum Abdullaahi Sheekh Ismaaciil oo professor oo aqoontu lahaa nin liba aanay jirin sida loo lahaa inkaar la kugu rid sida loo habaariyay bay'aar way kaga soo qaadeen kursiga sida uu lahaayeen kursiga muu dhaaf ibina saasa ku dhici doonta hadduu si degdeg ku wareejin waayo way ku dhici wallahi si degdeg ugu dhici doonta marka ummadan waxaan leeyahay war anigu idima lihi dad laaya idima lihi boss nin qabsada laakiin masayrkiina adduunka waxa la adeegsadaa siyaasad ma aragtay activation oo ma aragtay xuquuqdeeda boontigeeda banaanka dhigan karta meel aad wax ka tihiin anu ma arkinba meel aad wax ka tihiin ma arkin maxaan ku uri afasioni baa leedka yeedhaynin meel kale aan leedka yeedhaynin kafiilada joogaana waxaan ku uri waa dhageyste sida idaacadaha odaga baadiyaha jooga ee ma aragtay arigiisa mayracanayo BBC ooga dhageysanaya rikoodhada yaad ka tihiin maxaad wax ka tihiin dir baan maxaan dir ku harto dir maxaan ku waxaan wax ku wahay inaan xuquuqdeeda helo inaan sharaftayda helo inaan samcadaan bari lahaan jiray aan lahaado 7 shuba dhashay xildhibaanada meesha matala wax ay wax ka yihiin baan meesha joogo waxba meesha kama aha mid ay wax ka yihiin baan jirin Soomaali baan ahay maxay Soomaalidu ay Soomaali ku tahay Soomaali waxa wax lagu yahay war Soomaali qabiil inaga qabiil wax ku qaybsan arta lagu kala tagay shirka arta markii lagu heshiyo way Soomaaliya artay ku kala baxnay heer hebelo intaas aad helaysan jufo waliba kursigeedu uu suntay geela waa la suntadaa moogta nin walba hash markay kala wuxuu hashayda halkaas ka soo maarkay marka jufo waliba kursigeedu uu suntan yahay aniga geedin la hadlay kursigeygu waa 230 buu ku suntan yahay haye maxaa marka waxba kama nihin meesha wax aan ka nahay ma jirto waxba kama nihin waxba ma ogin if iyo aakhira midna ma ogin waa ifisioni baa loo maaragtay marka la shiro ee looga yeeray hadda Axmed Madoobe ana dadka Axmed Madoobe maaragtay ku kacsanaa ee bariga hor cambaarin jiray baan warniyo maxaa ka cambaarayntii maxaa horta ka cambaarayn dadkii baaba noocan ah yaad u cambaaran yaad sad u dhaliiliba ma garatay war dad nooc kalaaba maaha dad nooc sax waaye sax maxaa sax ku tahay dadkii Talyaani la dagaalamay ee Ingiriis la dagaalamay ee Abbasiiniyad la dagaalamay hilibka ceelin ee maanta Itoobiya cunto dadkii ku dhaadhicay dir bay haayeen maanta dirta la sheegayo waxaan ku wax ay wax ka tahay ma jiro tustu bontiga Soomaaliya ee maaragtay 4.5 ninkii dajiyay ee kafadiya miisaanka intuu saa u saaray sida u dajiyay in artay qaalib ahaa nin Isaaqo Maxamed Xiniftiro mahadira buha haye waa bontiga maanta hilibka lagu cuno ee ka daaroodna ku goosta ka dirna ku goosta ka hawiyahana ku goosta ka dir waxba kuma goostee waa hamba cune waxba kuma cuno marka dulmanayaal
وي حلبانا سان لا هذا يعني waxaan la hadlay dhalinyarada jiilka cusub ee Afrika iyo Aasiya meel walba ku nool iyo Indonesia Aasiya meel walba joogan ee calanka buluuga ah meel ka mid tahay adeer inta aad degmo leedihiin afartan ku dhawaad degmaad leedihiin Muqdisho maanta hotel istiraatiijiyada oo lagu shiri karo wax yar baale haye sida surro kala laga yaabaa hotel wardheer oo kale inay ku lahaadaan laakiin wax ay beelaha kale kuwii u deegaanka badnaa baan hotel ku lahayn waxba ku lahayn markay shirayaan maqaayad dad kale u tagayaan ma waxaasa markaa wax sharaf oo sharaf lagu sheegaa ma waxaasa wax ummad iyo magac iyo sumcad ilaaliya warniyo ina gumeednimada iska daaya oo cadkiina banaanka keensada oo sharaftiina banaanka keensada oo sumcadiina ilaashada waa maxay waxani ina gumeednimada ma fiicna oo ma aha cad quureed lama qaato sharaftaada iyo qadiyadaadu waa geed ka go'an adigoo ninna damaaci ku hayn dan hadda eeg Axmed Madow waa la shiray maartay dalina waa la shiray masayrkay lahaayeen iyo sidii loo rabay kanaalkoodu way marsadeen Balooniga sidii loo championka iyaga maanta Premier League iyaga waxaan ku Cristiano iyo waxaan ku Messi meel walba ka haye dirti maartay waad aragtay Mahad Cabdalla Awad baad aragtay oo gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka ee labaada oo maanta adarkaysa uu suudoon lagu maamuli karo wax ay wax ka yihiin malaha waa loo yeeriyaa efasioni bay tagay maaragtay meelahaas iska taagnaanayaan waxa loo dhahay sidaan aan ku heshiinay saxiixa wiilka Mahdi Guuleeda ka dhaqdhaqaaqayay Mahdi Guuleedna uu moraal jabay iyo moraal alla bay tiraahdaa Itoobiya waqti qof aan moraal lahayn muxuu ku shaqeynba moraal yeelan marka war waxaan leeyahay dadkan masayrkiina iyo maaragtay qadiidiin waa geed ka go'an wax aad aniga qarannimana ma aha mar raba inaan ku duulo laakiin xuquuqdayda mar raba inay hoos u dhacdo waxa hoos u ridaya waxa hoos u ridaya shaq dirba eeg dhalinyarada hadda jaamacadaha ka qalin jabsay mid baan idin sheegay caaw dhalinyarada wax baratay ee jaamacadaha ka qalin jabsay mid walba master double master ka hayso waxay dhahaan waxaan sugaynaa qaran hooyada qaranka ka was goortu qaranka aad hesho adag waxba hayga siinin markaad qaran hesho walaalo waxba hayga siinin mar qaranka aad sheegayso aad hesho oo ka dheregto waxba hayga soo gaarsiin kii dhageysanay iyo kii arki doono waxba hayga soo dhageysiin hayga soo gaarsiin qarannimo adeer wax qarannimo la meesha ma taalo nin walba xiniyu ku joogaa nin walba wuxuu ku joogaa cadkiisa soo goosto dirbaanahay sax waaye hageed wax ka tiin war wax caadi iska dhiga shuuba idin dhashay caadi iska dhiga kuwa direeda maaragtay media ka hadlana maaragtay xuquuqdooda ma dareemi yaqaanaan waxay u jawaabi yaqaanaan daahir calasow hebel calasow calas mahooyada uu qabay maxaa calasow ka galay nin calasow waa nin dadkiisa u fikiray reerkooda aad arkaysa geel buu u gadaa waree mani wal buu lacag ka bixiyay geel buu u gaday reerkoodu garab taagay maxaa ka galay daahir calasow mina ka baa dantiisu wata dantaada garan war waa maxay waxa maqli jiray meel atoor fadhiistay meel atoor ka kacay libaax fadhiisay maxaa calisow ka galay maxaa waxaan ka galay maxaa dantiisa ka galay reer baa tahay dantaadii reerkaaga waxaad fikrad ku biirin karto ku biiri professorada maaragtay dirta ah markay maskaxdoodii waxay ku biiriyaan dad kale maskaxdooda ka faa'iiday in arta qaale wata marihiisi waa la cunaya maanta rag baa meel dhiganaya isku shubanaya efasioni waxba loogama yeeriyo in xaashi baa la oranaya kaale efasioni ya waxba kama aha war meeqa degmo dal baad weyn waa degmo oo xiraale waa degmo oo tawfiiq waa degmo oo meeqa degmo oo shabel war waxay dadkani wax ka yihiin waa sax waaye naclad baa hooy war waxaan dad ma ahaniyo ummad sidan ummadnimo lagu joogniyo sharaftiina iyo karaamadiina wallaahi billaahi tullaahi maanta saan leeyihiin dirbaan hay wax walba uga leexda ya hooyadii lagu wasi doona marka dambana nin adeer dantiisa ka tashaday oo reerkooda u tashaday oo dantiisa wata laakiin mashquul kada ila wadaag baad ku wacaysaa kada dadka ila wadaag ma garatay marka waxaan idin sheegayaa adeer sharafta ummadda iyo karaamadiina ilaashada oo waxaan ku qadiyadiina maanka keensada hebel dadka u jawaabi yaqaanaan war laba isteed oo madax banaan baa leedahay maanta oo mid maaragtay naga muxuu qofku noo soo dirtay mid maaragtay isteedada oo madax weyn aad ku leedahay maxaad marka ka tahay Djibouti baad leedahay oo dhaqaalaha u badan Afrika aad maaragtay Soomaaliya arkaysa ka soo qayb qaadatay ma garatay wax aad meel ka tahay mala sax waaye naclad war waxaan dad ma ahaniyo ina gumeed dhalay way meel ay wax ka yihiin dirtu ma jirto niyo
dad baktiyay baa meeshan jooga oo maaragtay meel ay wax ka socdaan iyo sheergareeya barnaamijka sheergareeya waa ku jira barnaamijka sheergareeya oo sheerta la dhaca 7 shuubaa dhashay wixii xildhibaan una nin walba xildhibaankaaga ka xisaabtaniyo sheergareeya waa inuu qoraya na alla shuubadii dhashay ku yaa ruux dadba ma ummadda meesha timinniyo xamaydin sheega aan biyaha u cabbe sheergareey barnaamijka soo dhawow nasteex adeer dir baanahay wallaahi iyo billaahi iyo tullaahi sharaftii iyo karaamadii meel baad kaga dhacdeen 75 xildhibaan oo beeri qaatayaala siiriga iska fufeen way iska fufayaan hore ka fufayaan wuxuu ma ogaba xagee loo socdaa maxaa jira masayrku waa sidii ummadaadi meeday yaad matashaa kitaabkii lagu mariyay away ma mid wax dhahaya male siirigu horu ka yeerinaya haye mid wax masayr iyo maamuus iyo qadiyad mid wax ka og ma laha ma garatay mid wax og iyo mid kala toona ma laha marka dirnimadan la sheegayo dirnimada maxay dirnimo ku tahay waxay wax ku tahay Soomaaliya taa farqu fool ma dhaqda moogtahay farqu fool ma dhaqda leeyahay marka gacmo wada jir bay guur ku dhaliyaan dadkan dir baan nahay war dir hadaa tahay wax xildhibaanada maxay qabanayaan maanta fiisoon waa lagu shiray shalay waa lagu shiray biri waa lagu shiraya waxba kama og maxaad ka ogtahay maxaad kala socotaa waxba kala ma socdo wax aan ka ogahay iyo wax aan kala socdo midnaba ma jirto marka ummadani maxay umad waa la sax waaye ya weligeed masayr direed oo wax ka hadlay ma wasiir isaaq oo maaragtay halka tagi karana ma jiro mid kale ma tagi karo nin walba waa inuu dirnimadiisa ku xisaabtama Soomaaliya 4.5 baan ku qaybsanaa 4.5 anu ninkayda maanta qabiilkaygan wuxuu qabanayaa oo qabiilkaygan ku soo doorto oo qabiil baan ku fadhiyaa wallahi waxaan leeyahay hambaliyo feerigu waa runtii qabiil baa soo doorto kitaabka loo mariyay iyaga la yiri markii la dhaarinay ma ku kalsoontihiin yes way dhaarsadeen wuu matala sax iyo khalad wuxuu soo saaro ayaga ku qanacsan war marka tukaan inayso kafadiyo miisaan ba saa loo saaraa haye kafadiyo miisaanka marka wixii la iibinaya saasa la isku miisaama cadaalad waa saa qofka cadaalad ka shaqeynaya cadaalad waxa ay taala marka xagee taala cadaalad ma jirto nin waliba dantiisu uu masiirkiisu ka hadlaa masiirkiisu u xisaabtamaa shacbiyadiisu matala marka saxwa biiri qaatiyaal way waa ummad biiri qaata waxa sax xildhibaana lagu sheegaa meel ay wax ka yihiin iyo meel ay ka jeedaan ma jiraan Jubbaland hadda waad aragtay 9 wasiir ku dhawaad bureerkiisa u magacaabay ninka la dhaho Axmed Madoobe adeer yes heerkiisu soo shaqo tagay xoog buu ku haystaa ilaa uu ka helo wax xoog iskaga celiyana uu ku haysanaya ma ahan wasaya wuxuu doono haye maxaa markaa ugu mashquulide waa nin maaragtay soo anu meyd wata la soo galay buu meyd baan watuu markaan soo galay ya midugtuba miicin male haday bidixdu maqan tahay masaakiin baatiin waxaan nahay dir waxaan nahay maxay dir ku tahay warniyo adeer waxaan idin sheegayaa idinkoo eerisha oo maanta waxaan ku uri meel aydan wax ka haysanin oo meel u jeedin inaad iska tiraahdo meel ba sax waaye sax wuxuu waaba horay ka saxiixayaan war waxaan maxay ahaayeen ummadan xagee ku noolaan jirtay ummad waxaan ahayn sharaf leh oo sandalo